حسن شكري أو علي وحوي سينيور كاميرامان كدرسن وزارة warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland waxa madaxa qaybta kaydka arkiifyada waxa uu leeyahay kayd fara badan oo uu duubay muddo dheer xasan shukri aw cali waxa uu kamid ahaa ragii ka soo shaqeeyay raadiyo Hargeysa waqtigii jamhuuriyaddii Soomaaliya waqtigaas oo ahaa farsamo yaqaankii ugu da'da yaraa ee raadiyo Hargeysa ka soo shaqeeyay intii halgankii waxa uu ka soo shaqeeyay idaacaddii Beelgubadlo madax iyo farsamo yaqaan iyo qaybo kale ka soo noqday xasan shukri tan iyo intii dalka la soo galay waxaan buu duubay maalin walba marxaladdu halkii ay taagneed sanada 2020 waxa uu ku sugan yahay Hargeysa Stadium xasan shukri aw cali waxaynu weydiin doonaa marxaladihii garoonkan Hargeysa Stadium uu soo taagnaa iyo bal maanta sawirka ay siinayso garoonkan maxaad ku xasuustaa xasan cabdirashaaq runtii wallahi waa laba xaaladood aad iyo aad u kala duwan waxa lagu xasuustaa waqtiyadii garoonkan aan ugu socodka badnaan waxay ahayd waqti labada tarbuunba ay buuxaan oo isla garoonka gudihiisuna uu buuxo bal hadda waqtigaas muxuu ahaa waqtigaas garoonka waxa lagu xasuustaa hubka dhigistii waddankan ka dhacday garoonkan baa ahayd goobtii hubka dhigista Soomaaliland ee ay ku xareynayeen marka xasuus gaar ayuu ku leeyahay waddankan Soomaaliland maalin kasta subaxnimadii ayaan ku kala jirnay garoonkan stadiumka xasuus gaar ayuu nagu leeyahay waxa soo buux dhaafin jiray dadweynaha magaalada Hargeysa iyo kuwa daafaha gaba ka yimid halkaas waxa buux dhaafin jiray tiknikadii ay ciidamada SNM wareejinayeen ee dawladdu ku wareejinayeen iyo dadweynihii u heelana bal mar uun in qoryahan iyo hubkan laga xaray taa waa lagu xasuustaa marka labaad markii waddanku soo yara kala degay kubadda halkan laga bilaabay kubaddaasi tan ma ahayn iyo garoonkan cagaaran midna ma ahayn baabuurtan faraha badan ee garoonka buuxisay waxna ma jirin dibadda lagu ilaalinayaa hadday ugu badato laba baabuur ayaa gudaha soo gali jiray kooxda ciyaaraysa kubadda bariga naadiyaal baa jiray naadiyaashaasi oo dhowr ahaa ayaa waxaanu ka xasuustaa halkan markii ugu dambeysay laba naadi oo ku ciyaarayay oo aan markaa ka duubay anigu yacni kubaddu garoonka siigada ku qarinaysa iyo nuuradda lagu dhex daadiyey ayay ciyaartooy ku dhex ciyaarayeen waxa cajiib ahayd marka la gaaro waqtiga hafteynka ama nasashada ay ka cabayaan sharaabka hal caagado kaliya ayay wareejin jireen tiimka dhami caagada ay isku dhiibayaan oo muddo mid kale u dhiibaya cabayaan waxa ban xasuustaa kooxda kale ka soo horjeedana digsi yar bay ku cabayaan biyaha digsidaasi ay isku dhiibayaan oo ay wadaagayaan haddii uu mido dhaawacmo cid qaadaysa may jirin qofka dhaawaca gaadhi uma oolin wax lagu qaadaa ma joogin dhakhtar ma joogin waxa loo soo bariyay gaari yar oo meesha taagan markaa ayaa loo soo bariyay oran jiro bal gaarigii nin baa laga dhaawacay gaariga nasiya markaa saas lagu qaadi jiray qofka oo bastii oo dhulka galgalanaya
waxa kaaga sii daran koobkan la dhigayaa muu ahayn koob sidan oo kala waxa koob Hargeysa lagu sameeyay oo markaa indhihiina ku arki doontaan koobka yar Hargeysa lagu dhex sameeyay ayaa ku dagaalamay labada kooxood oo la soo dhex dhigi jiray dabeetana mushkiladaha ugu badan waxa maalin walba dagaal joogtaan qofkii gool dhaliya khatartiisa ay lahayd marka adoo goolkii dhaliyay oo lagu garaacayo bal ka waran waxaad arkaysaa inankii goolka dhigay la isku tagay oo turbuunkii dareeray oo kala yaacay halkaana xidhnow haddana ciyaartu way soconaysay marka waan eegbal sidii ay u soo kala galeen kaalmaha waxaan la jecelahay inaad guddoonsiisaan labaadna waxaa ku guulaystay naadiga لا دواء سلاح